السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا قيمها احترامك inoogu fadhiyo caalamka meel walba aad ka joogtaan xilli walba oo idin tahayba waqtiga haydin wacnaado waayana haydin samaado wararkiin Cabduhaab oo idin le maalin kale iyo muuqaal horle aad baad ugu maadsantihiin sida qiimaha badan ee aad inoo la socotaan ama aad ugu garab taagantihiin channelka oo aad had iyo jeer ugu xirantihiin waan idinkaga mahadcelinayaa fiidiyoga haddii uu soo gaaro like gareysina share garey asxaabta nagu cusub markaasi oo waqtiga nagu sameeyna haddii aad ka mid tahay fiidiyogani subscribe channelka siiso si aad mar walba u noqoto daawadaha ugu horeeya ma ka sheekeeyaha ama taageeraha ugu weyn ee channelka inta waan idinkaga mahadcelinayaa guul iyo sharaf iyo cizi ku noolaada Soomaaliya meel walba aad ku sugan tihiin waxaana maanta inoo haya muuqaalkani ulajeedkiisana waan wada eegi doonaa waan arki doonaa oo waan wada daawan doonaa wixii markaas aan dhihi karnana waa dhaheena laakiin muuqaalka sida markaas uu u socday waxaad ka dareemi karto ayaan doonayaa in aan wada wadaagno oo aan meel ku wada wadaagno si aan uga hadalno hadaba muuqaalku waxa uu quseeyaa amaba uu yahay muuqaal uu soo duubay ninkii odaga ahaa alxanaan mannaan nin culus oo fanka Soomaalida markii loo eego aad ugu culus cawaale aadan heestan marka uu soo duubay commentiga ayaan akhriyay kaas ayaa igu kaliftay inaan marka idin la wadaago idinkana wixii aniga aan la yaabo waxaan jeclahay inaan wada wadaagno marka horta muuqaalka ayaan idin horkeeni doonaa kadibna waan isku soo laabanaynaa si taxaddar la u daawo bal daawasho wacan hiyey heesaad ka saarteen hiyey oo hiyey waan soo ceshadayey hiyey oo hiyey tuulaad ku dhalateen hiyey oo hiyey magaalanka imidee hiyey oo hiyey micyaalkaadi moodeen hiyey sida aad muuqaalka ku soo aragtayba cawaale hees ayuu ku qaadayay yacni cod caadi ah oo aanan hees ahayn kadibna waxaa dhacday heestan waxa laga soo dhax saaray in uu meel ay ku socoto yacni isaga markaasi waxa uu leeyahay yacni hees isaga uu lahaa ayaa xiraad laga saaray sida anigu markaa muuqaalka aan u dareemay wixii uu soo ceshtay markaa heestiisa oo jeclaa ama uu soo ceshtay kadib jawaab ayuu wuxuu siinayay dadka markaa isaga nolosha ku soo weeraray laakiin sida ay u dhigeen dadka qaarkood sida ma ahayn qaarkood waxay u dhigeen sawirada sababta u soo qaatay yacni waxay dhaheen waxa uu ka hadlayaa marba meel la geeyay ninka odaga ahaa mana kala hadlaynin heestan waa wada dareemayna mar waxa la geeyay najmanashaad marna waxa la geeyay masixiis labadaba aynu shaqo kuma lahan ayaa anigu nafsad ahaan aaminsanahay laakiin dadka aragtidooda waxa ay u badnayd marka ama ay leeyihiin arimahani mar waxa jirtay muuqaal ay soo wada duubeen oo in yar ahayd hees ay soo wada wadaan oo muuqaalkeeda aanan wali yacni soo gaarin ayaan jeclahay isaga iyo najmanashaad oo laakiin aad u shidneed hees shidan ah ayaa dadka shaki wada gelisay oo waxa ay leeyihiinba waxaa jira xiriir hoosaad u dhaxeeyo fanaanka iyo fanaanada maadaama aynu aragtida arkayno ay ka duwan tahay amaba ay shaqaaxiso in ay jiraan arrimo runtii markaasi la yaab leh amaba ka duwan waxa loo maraynayo saas ay iyaga aaminsan yihiin in badan oo dadka kamid ah laakiin runtu waxa ay tahay horta fanaanka aan wax yar dib ugu laabto maalintii dhaweytoole showgii sanadka cusub oo qabanaya waa bisha wax yar ka soo wareegatay showgiisaas maana soo qaadan sababtoo ah waa waaye muuqaal markaasi aan runtii idin horkeeni karo oo cadeyn u ah yacni ama hadlayaan amaba sidaas oo kala waa waaye laakiin xaqiiqda waxa ay tahay showyada iskoorka dhigay sanadkan cusub ayuu ka mid ahaa waxaana markaa mataan kula ahayd amaba la joogtay oo waqti xaadirkaasi waqtiga ama waayaha la qaadanaysay fanaanada najmanashaad oo يعني aad moodidba inay jaanta isla heleen iyada iyo fanaanka inay jaanta iyo ciribta isla heleen ayaad moodaa laakiin dadka sida ay wax u fasireen amaba loo qaatay ama aragtidan hadda laga heystaba ma ahan mid run ku salaysan ee waa mid mala awaal ah markaasina aan hore uga soo daalnay ama aan hore u soo aragnay dad badan oo iyagoo aanan is arag amaba aanan wax xidhiidh ah oo san ka dhaxaynin la isku keenay oo meel qura lagu soo wada xaadiriyay runtii waynu ka soo daalnay waanu soo wada aragnay dad kasto isfahmaan xagga Soomaalida waxa laga keenaa afkaar amaba shay kale oo ka duwan shayada marka annaga aan maleynayno
haba u badnaadaan in markaasi loo qaadayo ama la dhahayo ama la geynayo meel aysan xaajadu markaasi aynan ahayn iyo hal aysan ku fadhinin ayaa inta badan la geeyaa oo waynu wada aragnay dhammaanna waxaynu marqaati ka nahay markaa in ay hawshaasi mar walba ay iska dhacdo oo social media aan inta badan ku aragno waxaan isweydiinaa marka maxay tahay sababta guud ee markaasi malada noocan oo kala loogu malayo horta Cawaale iyo Najma Nashaad labadaba ma ahan laba maanta aan meel ku ognahay oo aan dhahayno meeshaas ayay ku jiraan oo hebel waxa uu ku qaldan yahay ama heblaay waxay ku qaldan tahay in ay sidan oo kale ay la timaado ama ay sameeyso sababtoo ah xor weeyaan labadaba way isguursan karaan hadii ay iska helaan laakiin ogow waxa jirto fanaaniin iyaga aragti ahaan isku haysto in ay yihiin dad asxaab ah ama walaalo ah oo aanan isku soo jeedin waqtina aanan isku haynin markaasina aanan xitaa annaga maladeena markii halkan la dhigo iyaga xitaa aanan isku arkeenin markaa inay isku yihiin dad isdamci karo laakiin annagu waan ku riixnaa qofka illa ma uu soo qayliyo oo yiraahdo warniyo waxaan ka daaya hawsha sidani ma ahan gabadhan waa walaashay wiilka waa walaalkay illa ay yiraahdaan waan isku riixnaa oo waxaynu aragnay ama u soo joognay weeyaan arrinkaas oo ma ahan waxna looga sheekeynayo hadii aynu social media dadka isticmaalo aan nahay ama dadka ku xiran inta badan waqtigooda ku qaato aynu nahay wax badan ayaan u soo joognay wax badan waynu soo nolol aragnay in aysan waxba ka jirin hadalkan ama hadallo badan oo sidan oo kala social media soo galeen taa iska daa xitaa waxa marmarka qaar dhacdo in dad jacayl jilayo kuwan heestoodii soo socotay ayay markaasi horow dhac uga dhigayeen oo ay u diyaarsanaayeen in ay dadka hor keenaan heesta ay social media soo geliyaan si ay markaasi dadka iyagoo heesta u sugayo muuqaalka marka uu soo galo ay u noqoto hees markaasi Soomaalida aad uga gadanto oo ay dhigta u taagayeen taasi waaba taas qaarkood iyaga jilin sameeyaba si loo helo attention ayay jilin u sameeyaan oo waxa ay sameeyaan arin aad dhihi kareysabo war hadii aad runta si hoos u sii fiirisid gunta warniyo dadkan ama ay waxba ka dhaxayaanba naftaada xitaa heerkaas ayay ku gaarsiinaysaa ama ay ku gaarsiinayaan laakiin ujeedka waxaasi oo dhan laga leeyahay markii la isku soo wada duub waxa ay u dhamaataa ama ay u egtahayba inay tahay mid caadi ah oo aanan waxba ka jirin oo qof walbaba oo markaasi doonayo oo kaliya ama uu u sameeynayo in attentionada ay dadka ku qabsadaan oo kaliya intaas waay jacaylka la kama dhaxayo dadka qaar waanu soo jaagnay wax badan soo aragnay xitaa adigan daawanayo waxyaabo badan oo sidaas oo kala ayaa u soo taagneed oo aad arkaysay tanina tii oo kala ayay kamid tahay fanaanka Cawaale waa fanaaniinta aanan heesahoodii abid ka dhicin xagga Soomaalida waana fanaan u qalmo in markaasi la garab taagnaado waa fanaan حتى هدي اللي قد جيه هسيس موسيقى عوالة آدن حقيقة مركز لقى هالله حتى هدي اللي قد جيه هسيس موسيقى سعادي أي أوجد ميان عدكيسة حقيقة وأنا تا كنت وحى أي تاي مرول بابا إن مركزي وحيد نبتة لقى شيء وحيد نبتة أنا لا شيء قفك وحى وياهن وياهي عد وحى بدلي كرتام ماله وحى وصناهينا من نقون كروي جرتا فنانين بدن وهدي موسيقى اللي قد جيه عدكو ذا أينن آد أوجد مينين لكن فنانين تقار حتى بلا موسيقى أي أودي كران إن أي عدكو ذا شعبك صومالي ذا أي كئيب ama ay hor keenaan fanaaniintaasna ayuu hormuud u yahay waa fanaaniinta dhexe ninka maanta uu haysto kuwa dambana la jaan qaadi karo alfanaan Cawaale waxaan ku leeyahay guuleyso waligaana farxad ku noolow waxaynu mar walba kula garab taagannahay si walaalnimo ah waxaanu ku garab taagannahay taageero buuxo oo markaasi aanu ku hayno hadii aynu nahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin aad baad u mahadsantiin reer Siriicaad adiga muuqaalka wixii kaaga baxayn waad nala wadaagi doontaa waxa commentiga ayaad nagu wadaagi doontaa fiidiyoga la gareeyay share gareeya intaan mid xiga ku kulmi doonaan dhamaantiin waxaad kaga sii tagayaan nabad